kelimadayda inaan kaga hadlo munaasabadan sunno ilaahay tabaaraka wa tacaala ama sunan ilaahay iyo qawaaniin ilaahay leeyahay oo kowni ah oo tilmaamaya ummaduhu markay horumarayaan ama markay kufitaan ay kufeen ka hinqanayaan ama ka kacayaan asbaab buu ilaahay u sameeyey tabaaraka wa tacaala ilaahay isaga kownka maamula laakiin wax walba sabab buu u sameeyey sababtiisii haddii lala yimaado midhihiisa iyo natiijadiisa waa la goostaa haddii sababtii la gar marana lama gaadhayo natiijada lama gaadhayo allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu in badan inooga warramay qisaska ama qasaska qaybaha qur-aanka ku saabsan adduunka wixii soo jiray mujtamacaad badan oo inaga horreeyey oo adduunkan soo maray qaybo ka mid ah ayuu qur-aanku ka sheekeeyey sheekada faraha badan ee qur-aanku uu ka sheekeeyey macnaheedu ma aha faakihaysi maaha qisooyin laysaga faakihaysto maaha sida alfa leyla waleyla oo kale maaha laakiin waa qisooyin xambaarsan duruus xambaarsan waa ilaahay wuxuu inagu barayaa wax la yidhaahdo sunan allahi fi lkown qawaaniinta ilaahay uu kownkan ku maamulo tabaaraka wa tacaala qawaaniintiisa waxaa ka mid a uu qur-aanka inagu baray haddii ay ummaduhu qabsadaan sababaha horumarka keena xadaarada keena waa hormarayaan hadday ummaduhu sababihii horumarka keenayay ay la imaan waayaanna waa dib dhacayaan waana burburayaan allah tabaaraka wa tacaala arrintaa iyadaa wuxuu gundhig uga dhigay oo saldhig uga dhigay inuu isbeddel ka yimaado mujtamaca laftiisa wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka wa tacaala ina allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ilaahay xaalad ummad ku sugan ma beddelo ilaa ay iyagu naftooda beddelaan halkaa waxaynu ka fahanay isbeddelka ummadaha ku dhacay naftooduu ka yimaadaa ayagaa sabab u ah ayaga midho ay sabab camal ay sameeyeen ayaa horumarka keena wakadalika dibdhaca keena axwaasha isbeddelaysaay waxay ku imaanaysaa cuskanaysaa ilaahay baa abuuraya haddana waxay salka ku haysaa addoommadaasi waxay sameeyeen sidoo kaleeta rabbigeen tabaaraka wa tacaala qisadii dagaalkii uxud oo saxaabo badan lagu laayay markii ay dhacday ayaa su'aali timid saxaabadu waxay yidhaahdeen annaa haadaa siday tani ku dhacday waa saxaabadii nebiga sal alla alay wasalam waa ardadii rasuulka sal alla alay wasalam haddana jab baa gaadhay 70 baa laga dilay dhib baa soo gaadhay say ku dhacday bay isweydiiyeen allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum waxaad ku tidhaahdaa naftiinna agteeda ayay ka ahaatay waxa idinku dhacay ma aha ilaahay idinma dulminin ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo laakiin waxaad idinku gasheen midho ka dhashay weeye dhibka idin gaadhay sidaas daraaddeed qaacidada asalkii waxa weeye isbeddelku wuxuu ka yimaadaa ummadaha allah tabaaraka wa tacaala wixii ayagu ay sababsadaan ayuu midho ku siiyaa ama horumar ama dibdhac qaacidada markaan taqriirino kadib ummadaha maxay ku horumaraan haddii la isweydiiyey si gaaban haddaan u tilmaanno waxaa asal u ah cilmi iyo barasho aqoon baa asal u ah ummad jaahil ah oon wax garanaynin oon wacyi lahayn ma horumarto sidaas daraaddeed baa qur'aanka kariimka ah aayadihii ugu horreeya ilaahay soo dejiyey waxay ahaayeen iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsana maa lam yaclam waa akhrin iyo qalin iyo barasho leanna ummaddii nebigu u yimi sal alla alay wasalam ummad dambaysay ahayd ummad jaahilay ahayd ummad qabaa'ilay ahayd ummadaan xadaaro lahayn bay ahayd
xadaaradii iyo horumarkii waxaa laga bilaabay akhri iyo barasho iyo aqoon baa laga bilaabay saas daraaddeed waxaan isku waaninaynaa ha lagu dadaalo aqoonta oo isugu jirta midda diinteenna ilaahay inoo soo dejiyey iyo aqoonta adduunyada ee naafica ah haddaynu doonayno inaynu ka baxno xaaladda aan ku jirno qodobka labaad ee ummadaha horumarkooda keena waxa weeye in aqoonta iyo cilmiga ummadda lagu tarbiyeeyo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu allah ka warramayay shaqada loo soo diray ee ummadda uu hayay wuxuu rabbi tabaaraka wa tacaala ku sheegay wayucallimuhum alkitaaba waalxikmata wayusakiihim kitaabka iyo sunnada ayuu dadka barayaa waana ku tarbiyaynaya sidaas daraaddeed waxyigu markuu yimid nebigu dadka waxbaray waxbariddii keliyata ma ahayna camal baa loo rogay dhaqan baa loo rogay akhlaaq baa loo beddelay tatbiiq baa loo beddelay ummaddu haddayna marka tarbiyo iyo camal ahaan u qaadanin wixii wanaagsanaa iyo cilmigii ayadana aqoon keliyata meel ma gaadho qodobka saddexaadii waxa weeyaanoo ummaduhu ku horumaraan ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu inoo sheegay waa amniga iyo istiqraarka ummaddu hadday nabadgeliyo weydo oo istiqraar weydo oo xasillooni weydo ayadana horumar ma leh inay gadaal u gurato oy dib u noqoto mooyaane haba yaraatee horumar ma leh sidaas daraaddeed baa ahmiyada amnigu uu leeyahay iyo istiqraarku uu leeyahay qur-aanku markuu ka warramayay wuxuu u tilmaamay arsaaqda bini aadamku ku nool yahay risiqa cuntada cabbitaanka aan laga maarmin ammaankii buu hormariyey kadibna risiqii ammaan buu ugu duceeyey kadibna arsaaq meelo badan baa qur-aanka saa la isugu lamaaninaya wadaraba allahu maalan qaryatan kanat aaminatan muطma'innatan ya'tiiha risquha ragadan min kulli makan fakafarat biancumi illah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kanuu yasnacuun ammaanka iyo xasilloonnida iyo risiqa iyo noloshu waa iswadaan cabsida iyo gaajaduna waa isku lamaan yihiin sidaasuu qur-aanku u cabbiray sidaas daraaddeed ummad aan ammaan lahayn oon istiqraar lahayn oon xasillooni lahayn iyadana horumar suurtagal maaha waxay ina baraysaa marka sidii hadyigii nebigeennuba ahaa sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisa ammaanku iyo istiqraarka ummaddu waa mas-uuliyad kulli dadkoo dhan saaran waaye ma aha mas-uuliyad dowladeed keliya ma aha mas-uuliyad wasaarad keliya ma aha mas-uuliyad koox gooniya ma aha waa mas-uuliyatuljamiic ummaddoo dhan baa mas-uul ka ah ammaankeediiyo istiqraarkeeda iyo xasilloonideeda maxaa yeelay haddii la waayo diinina ma jirayso adduunyana ma jirayso qodobka kaleeto ee horumarka lagu gaadhay qur-aanku tilmaamay waxa weeyaan midnimada iyo wada jirka iyo isjacaylka iyo iskaashiga iyo wada qabsiga maxaa yeelay rabbigeen qur-aanka kariimka wuxuu inoogu tilmaamay ummad hadday iskhilaafto inay fashilantay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ha iskhilaafina oo haddaad iskhilaaftaan oo aad fashilmaysaan qasab waa natiija xatmiya waad fashilmaysaan xooggiinni iyo awooddiinnuna way baabi'i waxaad noqonaysaa maataa oon qiimo lahayn oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo masaalixdooda la hunguriyeeyo maxaa yeelay qiimihii baad beeshay waxa keenayna waxa weeyaan waa qodobkaa isagaa waay walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wada jirka iyo walaalnimada iyo isjacaylka iyo waxwadaqabsiga haddii la waayo ummaddu awooddii la rabay inay horumarka ku bixiso iyadaa isku bixinaysa iyadaa isku mashquulaysa daaqaadkii o dhan ba iyadu isgelinaysaa mid khilaafsan mid daba ordaya mid naqdinaya mid la dagaalamaya awooddii la rabay in bannaanka loo saaro wax lagu dhaliyo wax lagu soo saaro ayaa waxay gelaysaa ummadda dhexdeeda qabyaalad kooxaysi gurubaysi masaalix marba haddii khilaaf yimaado ummaddu kala jabto natiijadu waxa weeye waa fashal waay sida qur-aanka kariimku inoo sheegay dalalkii muslimiintaee qiimaha badnaayee qaaligahaa ee la waayeyna waxa lagu waayey waa tan ina haysatoo kale waa dhulkii muslimiintu 800 sano ka talinayeen andalus
waxa lagu waayay waxa weeye waa qabiil iyo koox iyo dana khaas iyo maslaxad khaas iyo dadkii walaalaha ahaa in dhexdooda ay isku mashquulaan kadibna cadowgoodu ka faa'iideysto sidaas daraadeed ummad iskhilaafsan oo kala tagsan natiijadeedu waa fashal sida quraan kariimku inoo sheegay midnimadu waa laga marmarka waa arin muqaddasa waa in quraanku tilmaamay sunnada nabiguna tilmaantay sallallahu alayhi wasallam bini aadamka aqliga leh hatta gaalba ha ahaad bini aadamka aqliga leh hatta gaalba ha ahaad waa garanaya midnimadu waxay tahay hatta xayawaanaadka ilaahay abuuray tabaaraka wa taala in badan oo kamil ilaahay alla wuxuu geliyay fitra'a wada jirka iyo faa'iidadiisa iyo kala tagsanaanta iyo dhibaatada ay leedahay cayayaanaadka hatta yaryarka ah ya shirca duulaanka iyo muxuu ahaayay shinnida waxyaalaha yaryarka ah baa ilaahay wuxuu geliyay fitra'a in ay wada jiraan oo wada qabsadaan oo cadawgooda iska wada celiyaan oo kala dambeyn yeeshaan bini aadamkii aqliga lahaay waliba muslimka ahaa waxa halka dhigay isweydiin bay mudan tahay saas daradeed midnimadu waa muqaddas waa in la ilaaliyo qodobka kale ee mid horumarka lagu gaaray quraanka kariimka inoo sheegay waxa weeye waa al-adala al-ijtimaa'iyya umadu inay cadaalad hesho oo dulmiga iyo xadgudubka iyo gardarradu meesha ka baxdo umada in xuquuqdeeda ay hesho midka tabarta daran loo naxariisto ka xooga badan iyo ka tabarta daran uusan ku istaagin in la isu tanaasulo in umadani ay hesho cadaalad hesho waxa Allah tabaaraka wa taala siyaasadda sharciga ah shariicadu siyaasad bay leedahay siyaasadda sharciga ah sidoo leeyahay Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah laba aayadood buu ilaahay ku ururiyay tabaaraka wa taala labada aayadood uu ku ururiyay suuratu an-nisaa bay ku jiraan waa laba aayadood oo isku xiga waxay tilmaameen madaxda xaq lagu leeyahay mas'uuliyadda saaran ra'iyada iyo shacabka la xukumayo mas'uuliyadii xilka saaran haddii shacabkii iyo dawladdii khilaaf dhex maro sidii loo xallin lahaa intaas ilaahay ku ururiyay tabaaraka wa taala inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha madaxdu xilka ay hayaan waxa laga dhigay amaana ay ummaddu leedahay ayagu malaha laakiin ummadana iska leh inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat amanaatka inaad gudataan ila ahliha dadki iska laha inaad u gudataan yaa iska leh shacabka iska leh shaqadan shacabka iska leh mas'uuliyadda shacabka iska leh inaad u gudataan wa an tahkumu bil 'adli markaad kursiga ku fadhidaana ummadda inaad cadaalad ku xukuntaan iyo dariiqa saxda ah oo aad dulmiga ka fogaataan inta waxa lagu la hadlay madaxdii ra'iyadiina ilaahay wuxuu kula hadlay aayadda ka dambaysa yaa ayyuhalladheena aamanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasuula wa ulil amri minkum mu'miniintii wa ra'iyadii waay allah atii'a rasuulkiisa atii'a dadka xilka iyo talada idin hayana amarkooda atiico yeela tabcan waa wixii shariicada aan khilaafsanay marka ra'iyadana waxa lagu leeyahay wixii aan shariicada ka hor iimaanaynin inay nidaamkooda iyo dawladda iyo cidda u talinaysa ku garab istaagaan amarka yeelaan talada qaataan kala dambeynta ku dadaalaan dawladdii iyo shacabkii hadday isku dhacaan maaha xal ah fa in tanaasactum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasuul dawladdii iyo shacabkiiyow haddaad isqabataan oo wax ku murantaan u celiya xagga alle iyo rasuulka xaggiisa yacni wax way qaanuunkii ilaahay soo dejiyey u celiya isagaa idin kala saaraya oo idin dhexeeya oo garsoor ah sidaas daraaddeed haddii ay ummaddu ay noqoto fawdo aan nidaam ku soconin ama dulmigu ka yimaado madaxda ama shacabku dowrkiisa iyo kaalintiisa qaadan waayo ummaddaasi ma hormarto waa laga maarmaan marka cid walba positionkiisa saxda inuu qaato si looga baxo xaaladdan aan ku jirno ummaduna horumar u gaadho qodobka xigaayo wuxuu yahay oo isla qodobka raacsan mid inaan ogaano waayo qaacido kale oo quraanku taqriiriyay baa jirta oo inaynu fahanno u baahan qaacidadaasi waxay tahay madaxda iyo dawladda haddii ay kugu xumaato dawladda kugu xumaatay waxay daliil u tahay inaad adigu xun tahay masalada aad ugu fiirsada dawlad kugu qalloocatay waxay daliil u tahay inaad adigu qalloocan tahay meel kale ha ka raadin
الله قرآن كريم كوحيد وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ظالم هذا تهي إلهي ظالم بكوكوس اللذي الجزاء من جنس العمل محايلة أذيقي ظالمة ما استاهشد مركا إن مدوانا أكسن لقوك ينو ما استاهشد هذا ضربتو إني وحكو صحمان هوستك الصح ساس تردد مجتمعاتكم مركا هوستك الصحمان با إلهي كوركا أصحى دولة أصحى لكن مجتمع فاسدة أو بدنكين خربية هاي أو وحقصي أو وحديلي أو ظلمينية أو إسخلافي وحبي سوهم بينيني هذا الدولة وانا أكسن مالك هينو تأديك كنت هاقاني ككع يا دولة دي وانا أكسن أدا كنت هاقاني ككع هاقاتي إسهاقاتي مركز إسهاقاتي سإلهي وهاقاتينا يا تبارك وتعالى سنة دانا وسنة قرآن كريم كينو الشيء وحاكنا قدر مهمة أو مضوه كهر مران مر والبا إن لا إلاليو نظام كي كلا الضمبين إن لا إلاليو فوضى وحبكم السروبان فوضى وحبكم السروبان سيداس درادد أيا وحا قرآنكو إن بري قرآنكو وحو إن بري نظام إيه كلا الضمبين بو إن بري نبي إنه مركو يمي صلوات ربي والسلام عليه إلى أنتو كلمني ومدى وحوكوه قاميني النظام إيه كلا الضمبين إيه اسمقل النبي صلى الله عليه وسلم مالين بو صحابة دوانيي ومدي صلى الله كذب وحيكون هذا رسولك إلهي ساك وادنا وانس وأنا حيل غير وآدمو دينا نجت جيسون السجوتيس النظر دارا النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وحنيدين دردار ما إلهي عبسيس ودين تأساس كذيوه والنبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة إناد اسم قشان كلا الضنبيسان إسياشان نظامك إلى لسان بان إذين دردار ما يابو النبي صلى الله عليه وسلم وبيرسو تقوذي أو الدين تأساس كذيئة أيا وحال لقول لمانيي ومدوني كلا الضمبين لهذا ورمامو الهدود دقمك اللسان يهي هبربرنين هجاج وحي كخلدن أصح قلنا الصيحة حدوي كوحير النظام لهذا النظام كهبربرني متكر هدود شر هبربرني عد بربرني سهكو قرب سيني محايلة حتى هدات كعلى علي سيدة شريتان كذا وحور رامات شريد لآنته علماء وحي هذان 60 سنة بإمام جائر أو ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام لحدا سنة الدولة حنكو هايستو أيا وحي دانتا هل هبين الدولة لآنا بالمسألة هو بيرصد محايلة هل كهبين الدولة لآنا انت الشرع دعي كرتا لحدا كاسنة الدولة قالوا عنها ما دعي كرتو هل هبين هدون نظام كبربره خلاص في النظر دعيس يديق يحرمدا يآفدا دعيس هاي لحدا سنة الدولة قالوا عنها ما دعي كرتو سيداس درادة باوحة مبدؤي هي إن مرول بالنظام لا إله ليه حتى هديق الله كتشره طريقه والنصيحه وتوسين هدو توسي وايه إن الله صبره وقت الله سيئه لا دداله لكن هدي انتي جرتيبا عكت الله مريو كذلك بالله نقول حالنا معها وانا ميد النبي صلوات ربي وسلام عليه حديث فربضان وكيري وحا اقدم بيان اقدم بيسينا يا امدي واخلاق امدان اخلاق لها انما هرمرته اخلاق ده عدالة ده حشودك أسطرك وناقة حشمة كلتشر وحي انو اهاي دقنكي وناغسنا ان لا ilaaliyo oo burburay soddonkii sano dawlad la'aanta aha dawladii systemkii kaliya ma burburinay bini aadamkiina waa la burburay bini aadamkii wuxuu noqday yaani waxa inaga soo haray in yaro ilaahay u naxariistay mooyee bini aadan wax walba u burburinayo dantiisa iyo maslaxadiisa aan dal u naxaynin aan ummad u naxaynin aan diin u naxaynin hadduu madax yahay iyo hadduu minje yahay iyo hadduu meel walba jooga aniga maxaa ii dan ah keliyata bini aadamkii waa burburay bini aadamkii intii loo dhiso u baahan yahay akhlaaqdii inay soo noqotaan u baahan tanaasulkii iithaarkii walaalnimadii isjacaylkii waxisasiintii qarannimadii wada jirkii inay soo noqoto waa haddii akhlaaqdii wanaagsaneyd iyo dhaqankii wanaagsanaan la waayo ayadana sidoo kale ummaddu ma hormarto sidaas daraaddeed khulaasadu waxa way walaalayaa horumarku gacanteenu ku jira biidni illaahi tabaaraka wa tacaala haddaynu inagu dariiqeedii qabsannana insha allah wax walba waa xalismay oo hormaraynaa haddaynu dariiqeeda seegnana natiijadu waxa weeyaan waa wareer iyo wax la'aan iyo sannado dheer oo dhibaatadu sii daagnaato waay innagaa marka gacanteenna wax ku jiraane
asbaabta horumarka iyo ummaduhu siday u hinqadaan iyo sunanka ilaahay u dejiyay aynu qabsanno saynu mushkilada uga baxno insha Allah ta'ala jazakumullahu khayr wa baraka fiikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi